bal qiyaas adigoo si caadi ah u raacay tareen, dadkii kula saarnaa way fadhiyaan, qaar taleefanadooda ayay isticmaalayaan, qaarna waxay iska daawanayaan safarkooda. Laakiin si lama filaan ah waxaad u aragtaa waxyaabo dhaadheer oo nool oo dhulka tareenka ku dhex socda. Markii hore waxaad u malayn kartaa inay yihiin masas, laakiin marka aad si fiican u eegto ma ahayn masas. Waxay ahaayeen eel nool oo ka baxsaday weel lagu siday gudaha tareenka. Dhacdadan yaabka leh waxa ay ka dhacday magaalada Nanjing ee dalka Shiinaha. Waxa ayna muuqaaladoodii si weyn ugu faafeen baraha bulshada. Waxay ahayd galabnimadii Isniinta 17 Agoosto 2026. Tareen ka tirsan nidaamka metro ee Nanjing ayaa si caadi ah u socday. Mid ka mid ah rakaabka ayaa watay weel ay ku jireen eelal nool, laakiin markii uu tareenka gudaha u galay, weelkii ayaa si lama filaan ah u dhacay. Dhibaatadu waxay ahayd in bacdii eelka lagu waday aan si fiican loo xirin. Markii weelku rogmaday, eelashii waxay heleen fursad ay ku baxsadaan. Daraasiin eelal ah ayaa hal mar dhulka ku kala yaacay. Qaar waxay u dhaqaaqeen dhanka kuraasta, qaarna waxay galeen meelaha yaryar ee kuraasta hoostooda. Rakaabkii ayaa hal mar isku arkay xaalad aysan filayn. Tareenkii wuxuu isku beddelay meel ay dadku ku mashquulsan yihiin qabashada eelal. Muuqaalka dhacdada ayaa muujinaya in dad rakaab ah oo dhulka u foorarsanaya, iyagoo isku dayaya inay gacmahooda ku qabtaan eelashii baxsaday. Qaar waxay qabteen eelka oo isla markiiba ku celiyay weelkii, laakiin arrintu ma ahayn mid fudud. Eelku waa xayawaan aad u simbibirixanaya. Markaad gacanta ku qabato, hal ilbiriqsi kadib ayuu kaa siiban karaa. Sidaas darteed, qaar ka mid ah rakaabkii markii ay qabteen ayay haddana ka baxsadeen. Qaar kalena waxay galeen kuraasta hoostooda, taas oo ka dhigtay in qabashadoodu sii adkaato. Waxa ugu yaabka badan ayaa ah in rakaab badan aysan iska daawan oo keliya. Waxay bilaabeen inay caawiyaan ninkii watay eelka. Mid baa qabtay, mid kale ayaa weelka hayay, mid kale ayaa eegaya meelaha ay eelashu u baxsanayaan. Waxay u ekayd hawl kooxeed aan qofna horay u qorshayn. Haddaba su'aasha ugu weyn, maxay ahaayeen xayawaanadan dadka cabsi geliyey? Dad badan oo internetka ku arkay muuqaalkan markii ugu horreysay waxay u maleeyeen inay yihiin masas, laakiin sida warbixinadu sheegeen waxay ahaayeen ilbiriis oo nooc kalluun ah oo jirkiisu dheer yahay, dhuudhuuban yahay, masna u eg. Marka aad eegto dhacdadan, waxay ahayd safar tareen oo caadi ah, laakiin hal weel oo dhacay ayaa safarkii caadiga ah u beddelay xaalad ayna cidna filanayn. Daraasiin eel ah ayaa tareenka ku dhex yaacay. Rakaabkii ayaa noqday dad eel qabta. Qaar waxay moodeen inay yihiin masas. Ugu dambayntii, dhammaan eelashii waa la soo qabtay, tareenkiina waa la nadiifiyey. Mararka qaar, dhacdo aad u yar ayaa abuuri karta muuqaal ay malaayiin qof dunida oo dhan ka yaabaan. Haddii aad ka heshay sheekadan, like saar muuqaalka, channelkana subscribe dheh si aad u hesho dhacdooyin kale oo la yaab leh oo dunida ka dhacay. Mahadsanidin daawadayaal.